بسم الله الرحمن الرحيم والله ما أركان waxaan idin soo gudbinayaa sir idin weligeen maqal waxaad iigu taqaaneen inaan idiin sheego wax idin ka weyn iyo maskaxdiina idin qaadan karin anigu weligay ma been abuuranin barnaamijka maalinkan bilaabay ilaa ka maanta dib soo raaca wax kasta oo laga shiro waan sheegaa waxa ay noqonayaan iyo waxa ku soo socda 6 biloodlaan u sheegi jiray sanadlaan u sheegi jiray 4 sanad u sheegi jiray intana Soomaali way wada taabatay haddii aadan soo arkin warbeenaalayo ummadda beenta ka daayidhe kulligiin oo dhan waad soo taabanaysaan maantana waxaan u wadaa Soomaaliya waa maalin gablana xalay oo dhan aan ooynayay inta iga socotay maalin madow ah Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed ay madowdahay waxaad arki doontaan 2 bilood gudahood ilaa 3 bilood ama maalinkii doorashada dhacdaba laakiin sasaanteedii 2 bilood baad arkaysaan anagana dadaalkayga waxa weeye inaan ummadda wacdi geliyo oo sheego waxa ku soo foolay hadhowta si aysan u dhihin dad aqli leh dadka aqla saaxiibka ama Allah subhanahu wa ta'ala uu noo weydiiyo aqligan idin siiya awaya waxa umadiina uga sheego wada dhacdo tirimada taan baan ilaahay maartay ka magan galeynaa qiirada waxaad ka garan kartaa sida codkaygu u bedelayaa wallahi ma been abuuranayo billahi wa taala waxaan daba socday warqad muddo 2 bilood ah inaan warqadaas oo internetka soo galiyay aan idinkaga sheekeeyay mar kale laakiin waxa uu qasbay waxyaalo degdeg ah oo dhacay baa igu kaliftay warqada waxa lii ballan qaaday hadduu ilaahay yiraahdo bisha toddobadeeda waxay ku jirtaa wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya warqada waxaa qoray Itoobiya iyo Kenya iyo 3 dal oo waaweyn oo saaxiibo la yihiin waxay United Nations ka codsadeen in Soomaaliya ay gumeysi geliso oo ay gumeystaan 3 dal 5 dal gaar ahaan Etoobiyana ay maamusho wixii maamul lagu wareejiyo korkaana 3 dal ee qowmiyadaha ay kala shaqeystaan xagga dhaqaalaha iyo kheyraadka United Nations kana u sheegeen inay gumeysanayaan oo ay ku dhawaaqdo 2017ka United Nations ka waxay u ballan qaaday shirkan doorashada ka bacdi in loo qabanayo shirka qaramada midoobay ay ku aqbali lahayd Soomaaliya in istiqaalada laga qaato oo gumeysi dib loo geliyo waxay tiri waa hadduu fashilmo isku daygan oo ku dambeeyo waayo labadii dowladood ee hadda ugu dambeeyay midda xasan iyo midda ka dambeysay waa dowladda ictiraafsan yahay 26 sanana waa dhamaysan qaramada midoobay sharcigeedii loogu talagalay ilaa 25 gaariska Geneva Convention ana buuga idan soo qaadi doonay waxaan rabaa markii inaan sheego Soomaaliya meel kasta oo aad joogto in Soomaaliya istiqaaradii lagala wareegay warqadiina waa ku daba jiraa bisha 7 buu qabtay ninkii wasaaradda arrimaha dibadda lacag carrada ka badan hadda waxaan soo gelin doonaa bisha talaadada maalinka talaadada hala la socdo axmaarkii anigoo gorgortamayno oo aan duwayda soo gelin doonaa oo dhageysanaysan nisal gaarsan oo meesha ka jiro wuxuu yiri TPLF way kala tagaysaa bisha 7 iyo 10keeda ka hor dhaxda xamar waan idiin sheegaa Soomaaliya inaad ku cimro qaadataan ninka axmaar taageersano aad sababa xabada waxay ka bilaabanaysaa bisha 7 kowgeeda ama labadeeda bisha 6 dhaxdeedan inay ka bilaabataan waliba jeclahay 3 week waa arkaysan TPLF qolada la dhigi jiray xukunka haystay wayaanaha labay u kala go'een arrintoodii xalay meel xun bay mareysay way kala tageen 2 kooxood bay u kala u jabeen xabadana dhaxdooda sidii Muqdisho ugu bilaabatay ka dhex bilaaban doontaa hadda arka weydaan weligiin waxba ha weydiinina Itoobiya dhan xabada waxay bilaabanaysaa Muqdisho iyaga dhaxdooda tikra oo islaynayaan madaxda iska laynayaan amnigiita haddaba waata juqraafiyada cusub ay idin soo gudbinayo Itoobiya inay Muqdisho fariisato ilaa 6 korneel ay xukunto sida marka istiqaalada laga qaato loo xukumo la istiraatiijiyada cusub oo samaysay way Itoobiya sida Itoobiya ugu dartay dalka ugu darsatayna waa idin tusay juqraafiyada cusub waan helay iyadana oo Itoobiya ugu darsanayso waatana daawasho wacan wanaagsan Soomaaliya waa tagtay Soomaaliya waa tagtay 6 korneel baa xukumay doonta hadda meesha fadhido ay Muqdisho oo xarunteeda noqon doonto okay hadhow inuu noo sheegay sheekh baa waanin jiray ummadiisii oo dhigi jiray war ka baqay war cadaabka oo daay dambiga war cadaab baan ugu soo socdo war halaag baan ugu soo socdo war rogaya warkada waa la dhigay Soomaaliya dad baa daadad iyo roobab iyo u imaadeen oo tuufaan waa la qaatay dadku biyaha marayaan banaag waxay tiri sheekhow arrintan ka waran dhigaha markii la xalin lahaa dhigaha waad xirateen guud
laakiin hadda halaaga meeshaad ka gashaan baa ka gelaya kulligiin halaag wana wada saameynaya balgumeysiga meeshaad ka wada gashaan baa ka geli doonaa waa maalin midooba Soomaaliya wallahi billahi watallahi ma been abuurto barnaamijyadeeda soo raac hal xabo oo been ma jiraan wax Soomaalida ka weyn maskaxdooda aan joogin baan u sheegaa way qarantaa maxaa kalifay ma garanaysaa badda Soomaaliya in lagu soo aadiyo September 19 miyaad garanaysaa oo doorashada xilligeeda oo dawlad cusub oo qaramada midoobe aan yeeli lahayn oo dhinaca dawladda bal horta aan aragno oo dawladda kale inay referral ka qaadato oo appeal ka qaadato laga yaabi lahaa oo la joojin lahaa maxaa waxaan ku tusayaa waa neef la qalay oo la qalahayo berihii mididii loo safeysana iska fadhiyo un baatiin Soomaaliya oo siyaasiyiin wax ka sugayo tuugada oo qaamiinta Allah ka furtay dad diin iyo asxaab lahayn neefkii baatiin la qalahay ilaahay ugu ogyahay maxaa keenay in la isku beego dawladda wada dhisayay Ethiopia waxay rabtaa in ay samayso waxa loogu yeero oo gacanteeda ujeedkeeda yahay in fail state ka dhigto balanta saas waa United Nations haday noqoto waa ku dhawaaqina waa insiinina bali waxay rabtaa oo xasan marka xalay Addis Ababa maalinka bishii afraad laga saxiixday in wixii maamul oo Ethiopia lagu wareejiyay ilaa doorashada qaramada midoobay way diidan tahay waa la isku hayaa arrinkaas وحقيقة طبعا وقد ذلك لن تكون بيجي لأن قريبة الوير إلا يونايتد نيشن وديب سيدي بان لو ديبا يا سيدي أيال لو ديبا يا إثيوبيا أنا لو ريجس المعمل كيو من صوماليا برما وحال كينيا فرط لو في قيو وعبصونا مفارح بكل يقدر تم الحويني حسن إفارح من السعوديين كذا إذا وجدت كذا وحوي إن فيل ستيت أي كم عاد فيل ستيت كانت تقبل عن دولة ضمن الهين يونايتد نيشن جو أنكا والقضية وطلع وإني سوق بيه وأنا نقول سنة يا والله إن أنا بين أبورين وبالله وطلع إلهي يقوقيا إثيوبيا وحي قصة وحد سمين ستر ترب بلارن أو كل وريجس أرابوركا تكدا مقدشو ماشاس قفر بن وعبصونا يو قفكي كتفرق ويا ماشي يكدش